بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaal waxa aad nagala socotaan Al-Jazeera Somali News waxaan ku sugannahay magaalada Kassel ee wadanka Jarmalka waxaan ra'yigooda iyo afkaartooda weydiin doonaa dadweynaha ku nool magaalada Kassel ee wadanka Jarmalka sida ay u arkaan madasha maamul goboleedka Kismaayo warbixintii ay soo saareen ahayd in ay gabi ahaanba ay xiriirka u jareen dawladda dhexe ee Soomaaliya arrintaa ma ku saxan yihiin mise waa ku khaldan yihiin waxaanu mikrofoonka la dhex qaadnay dadweynaha ku dhaqan magaalada Kassel ee wadanka Jarmalka sida ay u arkaan madasha maamul goboleedka Kismaayo ay ka soo saareen in ay gabi ahaanba xiriirka u jareen dawladda dhexe ee Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa dhammaan bahda TV-ga oo fursadan inoo siiday inaan aan ku cabirno fakarkeena shirka ku aadan Kismaayo waxaan leeyahay shakhsiyan maamul goboleedyadu sidii u shaqeynayeen iyo wixii loo sameeyay dhamaan waxaan u maleynayaa shacabka Soomaaliyeed macnaha war kuma seegana hase ahaatee haddii aan sii dhex galo dawladdu haddii ay wanaag la timaado maamul goboleedyadu ma aha wax dadka shacabka ku sii fog in la kala qoqobnaado shacabka Soomaaliyeed macnaha danta ku kalifaysa mooyaane waxaan jeclahay inaysan aaminsanayn oo haddii ay helaan dawlad tayale oo midayso oo dariiqii dawladnimada ama wanaagii dawladnimada la timaado inaanay waxba ka bedeli doonin xiriirkay u jareen maamul goboleedyada xiriirkii waxay ugu jareen dawladda dhexe Soomaaliya arrintaas waa soo noqnoqotay muwaadin ahaan adoo magacaaga ku bilaabaya ma ku saxan yihiin mise waa ku khaldan yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu waa Yaasiin Xasan Gaab waxa waaye ii sheegay maamul goboleedyada mar walba heshiiskan oo la wada gaaray ee tan soo noqdeen dawladda ay ku dhaliilayaan aniga waxay ila tahay in dawladda dhexe qalad leedahay sababtoo ah waa sababaynaya shirkii Baydhabo oo lagu heshiiyay iyo Garowe iyo Kismaayo qodobadii ka soo baxay ay kamid ahayd in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ciidamada federaal ay wada dhiseen dawladda qodobadii lagu heshiiyay halka ma fulin dawladda dhexe marka iyada isku mashquushay marka maamul goboleedyada waxa waaye naf oo si naf baxayo marka inay dawladda dhexe ay magacaaga ku bilaabaya magaalada Kismaayo maamul goboleedyadii ku shiray waxay soo saareen shir saxaafadeed ay ku sheegayaan inay gabi ahaanba u jareen xiriirkii dawladda dhexe Soomaaliya iyaguma dawladda kala oo dawlad kale xiriirka u jareen mise wadanku waa federaal oo xaq bay u leeyihiin arrinta muwaadin ahaan adoo magacaaga ku bilaabaya maxay kula tahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa u jartay xiriirka hadday ahaan lahayd dawladdii dhexe maamul goboleedyadii xiriirkii u jartay taa waa laga hadli karaa laakiin waa mid subxaanallahi waxa weeye maamul goboleedyadii baa xiriirkii jaro dawladdii u jaray haddii waxaan waxa weeye su-aashaas wallaahi waxa weeye wax aan anugu ka idhaahdo ama se aan kaga jawaabo ma garanayo waxaa halkaa xaaladaa gaarsiiyeyna waxa aan u arkaa waxa weeye aad baa waxaad ugu malaysaa siyaasiga Soomaaliyeed inta uu campaignka ama se uu doorashooyinka uu ku jiro inuu siyaasadda wax badan ka garanayo ama se uu u dhuundaloolo markii uu galana waxa weeye waa uu ku fashilmaa oo waxa weeye fashilaad aad iyo aad weyn baa ka raacda marka kaliya waxa weeye walaal inaanu ducayno maahe nidhaahno waxa weeye qarannimadii Soomaaliyeed aanu waxa weeye la arki jiray in aynu dib aynu duco ugu doonno maahe waxa weeye wax adeer aan bulshada iyo mujtamaca la wadaagi karno oo su-aasha jawaabteeda aanu ka qancin karno may aha waayo waa su-aalo isdhaafsan weeye marka walaal intaasaan kusoo gabagabeynaya waa mahadsantahay walaal magacaygu waa Ismaaciil Xuseen Xasan aan ku nool wadanka Jarmalka qaasaa magaalada Kassel marka arrinta maamul goboleedyada mar walba oo soo laabaneedo anu waxa isleeyahay dawladda ciladaas oo dawladda iskale sababtoo dawladdu waxay marka hore maamul goboleedka inay gacanta ku dhigaan ee adkeeyaan jaanisay siiyeen in maamul goboleed walba madaxweyne oo noqdo oo madaxweynaha la tartamo oo madaxweynaha garabka soo istaago waa mid ayaga isku keenan waa dawladda waxay ahayd dawladda inay ka fikirto qofkan booska taagan yahay iyo dawladda booska taagantahay inay kala gartaan maanta inuu meel walba ka hadlo meel walba inuu tago inay isku imaadaan shiraan ee dawladda yar hadeertaan oo iftiintay isleenahay wadankii hadda nabad naqday dhalinyaradi ay rabaan inay ku soo laabtaan qurbiga ka soo laabtaan shaqo abuurin iyo ganacsi iyo business wax walba ay ka sameystaan haddana niija waa dhalinyarada ku dhacayso sababtoo ma waxay leeyihiin arrintu waxay arkayaan maamul goboleedyada badan oo ku yahay federaal adoo magacaaga ku bilaabaya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa waaye Ismaan Macalin Maxamuud Odawaay ayaa la yiraahdaa
marka arrinkaas waxaan leeyahay aniga nimankaas guuxooday ka dheereeyeen waxaysan ahayn ayay ismoodeen waxaa la yidhi baqashii fardalla daaqda faras bay ismoodaa la yidhi marka waxa waaye waa barasaabyaal wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ayay hoos tagaan waa barasaab la weyneeyey oo wax salaaxiyaad yaryar loo sameeyey waaye oo magacaygu waa cabdiraxmaan axmed siciid naanasteeduna waa sheekeeye run ahaantii su-aashaasi laba weji bay leedahay wejiga koowaad waxa weeye horta iyagu xaq ma u leeyihiin inay dowladda dhexe xiriirka u jiraan wejiga kale leedahay waxay tahay iyagu ma dowladba markay leeyihin waxaanu xiriirka u jirnay marka haddaan laba dhinac su-aasha u kala qaado maamul goboleedyadu waxay moodaa inay wadaan boor isku qarin sidaynu ognahay wasiirka maaliyaddu wuxuu sheegay inay jiri doonto la xisaabtan maamul goboleedyada markii la yidhi waxa loo baahan yahay xisaab celin ayay qiiq isku qarinayaan oo shacbigii doonaya inay marin habaabiyaan marka dhinacaa laga eego waxaa la odhan karaa xaq uma leh inay dowladdii qabqabsadaan oo yidhahdaan xilligan xasaasiga ah weliba oo diblomaasiyaddii gudaha inta laga gudbay diblomaasiyad caalamiya loo gudbay oo maxaan ku idhaha siyaasaddii arrimaha gudaha xilligan amoodo in dhinac la iska dhigay oo la yidhi waa inaan ka hanweynaa siyaasadda arrimaha gudaha ee noqonaa arrimaha caalamka jiina madaxay aljasiira somali news kaasal waddanka jarmalka